السلام عليكم دمانتين saaxiibada sharafta badan sheekada muuqaalka ayaa ku bilaabanaysa Las Vegas, Nevada waxaana arkaynaa jilaageena Nick oo cabitaan ku cabeeya baar markaasoo ay haweeney qurux badan soo muuqanayso taasoo dareenkiisa soo jiidatay magaceedu waa Didi waxayna halkaas u joogtaa inay la kulanto nin ay ugu yeerto G oo ah ganacsade jecel iyada kuna qancinaya inay la noolaato laakiin Didi ma hubto arintan waxayna kulan u qorshaysay inay joojiso xiriirka ay la leedahay isaga dhanka kale Nick wuu sakhraansan yahay oo indhihiisa kama qaadi karo Didi wuxuu u dhaqaaqay dhankeeda suu ugu casuumo cabitaan taasoo keenaysa muran iyo cabsi gelinta lamaanaha si kastaba ha ahaatee Nick weli kama quusan Didi wuxuu u raacayaa ilaa baakinka halkaasoo uu G ka daalay dabeecadiisa oo uu si xun u garaacayo ilaa uu dhulka ku tuuro markay Didi aragto sida geesinimada leh ee uu G u dhaqmay iyo siduu Nick u garaacay aad bay ula dhacday waxayna aqbalaysaa dalabkiisa ah inay la noolaato intay waxaan soo dhami dhacayaan waxaan arkaynaa gabar lagu soo tuuray albaabka hore ee qolka gargaarka degdega ah ee isbitaalka gabadha yar si xun ayaa loo garaacay waxayna ku celcelinaysaa hal eray oo kaliya inta la daryeelayo oo ah Nick subaxdii xigtay Nick wuxuu la kulmayaa saaxiibkiis Pinky oo ah qareen siinaya lacagtii loo balan qaaday markaas wiil dhalinyaro ah ayaa xafiiska soo geliya magaciisu waa Cyrus wuxuuna raadinayaa waardiye xirfadle ah oo ammaankiisa sugi kara intuu magaalada joogo wuxuu maqlay in Nick uu yahay kan ugu fiican kadib gorgortan ku saabsan lacagta Nick wuxuu ogolaanayaa inuu habeenkaas la kulmo Cyrus oo uu la socdo intuu booqanayo kasiinooyin kala duwan suu u khamaaro waayo waa caadadiisa saacado yar kadib Nick wuxuu booqanayaa Holly oo ah haweeneydii xalay la daaweynayay markuu arko dhibtii loo geystay wuxuu weydiinayaa inay xasuusato wax ku saabsan ninkii weeraray waxay u sheegaysaa inay wax walba ka dhaceen wiishka halkaasoo niman ay ku casuumeen xaflad balse markii ay halkaas gaartay cidna kama aysan helin qolkii markaas kadib waxay siiyeen maandooriye oo ay ku xadgudbeen Nick wuxuu si taxadar leh u dhageysanayaa faahfaahin kastoo ay bixiso kadibna wuxuu weydiinayaa magaca hoteelka oo uu halkaas ka baxaya saacad kadib wuxuu durbadiiba joogaa hoteelka halkaasoo uu kula kulmayo Millie oo ah saaxiibtiis oo ka shaqaysa qaybta nadaafadda wuxuu wax ka weydiinayaa nimanka iyo qolka ay degan yihiin waxay u sheegaysaa in shaqadeedu ay hadda bilaabatay oo aysan weli u suurtagelin inay wareegto markaasay u sheegaysaa inay kula kulmi doonto maqaayadda uu ugu jecel yahay markay shaqada ka soo baxdo halkaas Nick wuxuu ku baranayaa magaca ninka weerarka geystay Danny DeMarco oo ah wiilka maafiyada Talyaaniga ka tirsan ee magaalada u yimid inuu isku maaweeliyo waxaa had iyo jeer la socda laba waardiye oo waaweyn kadib Nick wuxuu wacayaa Holly wuxuuna si ula kac ah u sheegayaa been isagoo leh ma helin wax macluumaad ah oo la xiriira dambiilaha sababtoo ah ma hubo inuu ka adkaan karo burcadaas laakiin Holly si fiican bay u taqaanaa Nick waxayna isla markiiba garanaysaa inuu been sheegayo iyadoo og in Nick uu daneeyo iyada waxay uga waramaysaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan wixii uu Danny u geystay iyadoo rajaynaysa inuu xanaan ka qaadi doono oo uu ficil qaado habeenkaas Nick wuxuu la kulmayaa Cyrus shaqadiisii ugu horeysay inkastoo uu u muuqdo mid aad u daayar haddana wuxuu aad ugu fiican yahay ciyaaraha khamaarka wuxuuna ku guuleysanayaa xoogaa lacag ah si kastaba ha ahaatee habeenku waa mid dheer sababtoo ah wuxuu khamaarka geliyey lacag aad u yar dhowr saacadood kadib Nick wuu daalayaa wuxuuna ka tegayaa Cyrus isagoo kaliya qaadanaya qayb ka mid ah lacagtii la isku afgartay intaas kadib wuxuu u tegayaa Holly taasoo ugu dambeyn ku qancisay inuu caawiyo say u hesho argoosigeeda Nick wuxuu go'aansanayaa inuu ficil qaado wuxuu tegayaa qolkii Danny isagoo isku dayaya inuu iska dhigo ganacsade balse si dhaqso ah ayuu u muujinayaa ujeedadiisa dhabta ah taasoo ka xariisiinaysa Danny wuxuu bastoolad ula soo baxay Nick wuxuuna ugu hanjabayaa inuu jebin doono laf kastoo jirkiisa ku jirta suu farin ugu diro Holly si lama filaan ah Nick wuu weerarayaa isagoo si adag lugta uga garaacaya mid ka mid ah waardiyayaasha ilaa ay ka jabto kadib wuxuu adeegsanayaa kaarka bangiga oo uu soo afaystay isagoo wejiga kaga goynaya waardiyaha kale oo uu sii wadayaa dagaalka markuu xaaladda gacanta ku dhigo wuxuu wacayaa Holly taasoo durbadiiba hoteelka imaanaysa say Danny u ciqaabto oo kursiga ku xiran Holly waxay si daran u fadeexaysay Danny kadibna waxay boorsadeeda kala soo baxday maqaska caleemaha lagu jaro waxayna bilowday inay cadcad u jarto Danny raganimadiisa si xanuun badan Danny wuxuu u ooyayaa sidii ilmo yar markastoo la jaro wuxuuna ka baryayaa inay iska cafiso kadib waxay ka dalbanaysaa raaligelin dhab ah hadda oo ay ugu dambeyn ka dhirigtay argoosigeeda waxay ogaatay inay tahay inay ka tagto magaalada sida ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka ah nasiib wanaag Nick wuxuu $50,000 ka helay qaanad wuxuuna siinayaa kala barsay nolosheeda dib ugu bilowdo dhanka kale Nick wuxuu dareemayaa nasiib wanaag wuxuuna aadayaa casino halkaasoo uu kula kulmayo Cyrus kaasoo kula biiraya ciyaar uu Nick ugu yeero ciyaartiisii ugu dambeysay ee noloshiisa maadaama uu qorsheynayo inuu magaalada caawa ka tago
dhowr saacadood kadib Nick wuxuu 25,000 oo dollar ka dhigayaa in ka badan 500,000 oo dollar oo ah lacag uu sanado badan ku riyoonayay oo ku filan inuu ku noolaado nolol degan meel ka fog dhibaatooyinka Las Vegas. Si kastaba ha ahaatee, nasiibku wuxuu leeyahay siyaabo la yaab leh oo uu noogu ciyaaro. isla markii Nick uu rabay inuu lacagtiisa la baxo, dareen xoogan ayaa u sheegaya inuusan wax saxan samaynayn. waxa gudihiisa ku jira ayaa u sheegaya inuu sii ciyaaro. sidaas darteed wuxuu aadayaa miis VIP ah oo aan xad lahayn, isagoo go'aansaday inuu khamaaro ilaa uu ka helayo lacag uu mar dambe weligiis uga welwelin wax qiimahooda. Nick wuxuu hal gacan oo keliya dhiganayaa dhammaan lacagtiisii blackjack, balse kadib ciyaaro adag oo xiiso badan wuu wada luminayaa lacagtiisii guusha iyo 25,000 ee uu markii hore ka soo qaatay qolkii Danny. wuxuu la daalaa dhacayaa musiibada ku dhacday, wuxuuna xanaaq dartiis la cabayaa khamri ilaa uu ka suuxo. saacado kadib wuxuu ku soo toosayaa Cyrus aqalkiisa. Cyrus wuxuu qiranayaa inuusan Las Vegas u iman oo keliya inuu khamaaro, balse uu u yimid si Nick uu u baro geesinimada, inuu khatar geliyo naftiisa iyo wax kastoo uu leeyahay, si la mid ah sidii uu Nick blackjack khamaarka ugu sameeyey. wuxuu sheegayaa in lacag aysan dhibaatadu ahayn, wuxuuna u ballan qaadayaa inuu Nick ka dhigi doono nin hodan ah haddii uu baro siduu nolosha ugu noolaan lahaa si geesinimo leh. wuxuu ka daalay inuu cabsi joogto ah ku noolaado. Nick wuu diidayaa, wuxuuna ku laabanayaa kasiinada suu u sii cabo. halkaas rag ayaa u imaanaya oo weydiinaya inuu raaco, iyagoo leh Danny ayaa doonaya inuu kula hadlo. markuu maqlo magacaas, Nick si degdeg ah ayuu u falcelinayaa, wuxuuna weerarayaa ragga. laakiin kuwo kale ayaa soo baxaya, taasoo keentay dagaal dheer. inkastoo Nick u muuqdo inuu guulaystay, rag kale oo hubaysan ayaa soo baxaya. kuwani wax waqti ah kuma luminayaan dagaalka. taa beddelkeeda waxay madaxa uga qabanayaan qoryahooda oo ay u geynayaan maamulahooda. maamulahaasi waa nin ay ugu yeeraan Baby, oo ah mulkiilaha hotelkii Nick uu ku weeraray Danny. Baby wuxuu u sheegayaa in maafiyadu ay la soo xiriirtay iyagoo raadinaya ninka weeraray xubinkooda. ma aha taasoo keliya, laakiin ninkaas sidoo kale waxaa lagu tuhunsan yahay inuu dilay waardiyayaashii dhibanaha. waxaan ogaanaynaa in Danny uu laayay waardiyayaashiisa markuu Nick ka tegey, si aysan u sheegin siduu ugu ooyey sida ilmaha markay hooli jir dilaysay. Baby wuxuu u muuqdaa nin saaxiib la ahaa Nick, wuxuuna u sheegayaa Nick inuu u geyn doono Danny. hadduu caddeeyo inuusan dembi gelin, waa la sii dayn doonaa ciqaab la'aan. laakiin markay halkaas gaaraan, Nick wuxuu dareemayaa kursi ay hoostiisu bax fidsan tahay oo ah astaan aan wanaagsanayn. Nick wuxuu Baby u sheegayaa xaqiiqada dhacday, kadibna wuxuu khatar gelinayaa naftiisa isagoo leh Danny ma caddayn karo inuu dilay waardiyayaashiisa. Danny isagoo Nick dilkiisa u hanqaltaagaya wuxuu Baby u sheegayaa in Nick uu si naxariis daro ah u toogtay waardiyayaashiisa, kadibna uu kaftan kaga masiirsaday. Baby ma rumaysan karo. sannado badan oo uu Nick ganacsi la lahaa, marna Nick qori ma isticmaalin. wuxuu neceb yahay qoryaha tan iyo markii uu waayo qof uu jecel yahay. markuu ku guuldaraystay taageerada Baby, wuu ka tegayaa isagoo sheegaya in markay raggiisa magaalada yimaadaan uu isaga dili doono Nick, kadibna uu u iman doono Baby. Nick oo mar kale ka badbaaday dhimasho waa inuu magaalada ka baxaa, laakiin ma haysto lacag iyo qorshe uu ku helayo lacagtaas. nasiib wanaag, Cyrus weli magaalada ayuu joogaa, wuxuuna u yimid inuu macasalaameeyo. laakiin marka hore Cyrus wuxuu uga sheekaynayaa wax ku saabsan noloshiisa. markuu 19 jirka ahaa wuxuu ka sameeyey 5 milyan shirkadiisii kombiyuutarka, laakiin hadda oo uu 30 kusii dhow yahay weligiis dagaal uma dhowaan, gabar ma baran, wax xiiso lehna ma soo marin. runtii wuxuu haystaa lacag badan oo dadku badanaa keliya ay ku riyoon karaan, laakiin weligiis hal maalin xitaa uma uusan noolaan si dhab ah. sidaa darteed wuxuu baaray nolosha Nick, wuxuuna ogaaday inuu si dhab ah u noolaa oo uu ka mid ahaa Delta Force oo uu safaro badan galay. Cyrus wuxuu keliya rabaa inuu wax yar oo intaas ka mid ah la kulmo, kadibna wuxuu Nick siinayaa baqshad ay ku jiraan tigidh diyaaradeed iyo jeeg 500,000 oo dollar ah. lacagtan wuxuu siinayaa hadduu Nick ka ogolaado inuu raaco suu u baro siduu nolosha ugu noolaan lahaa sida uu rabo. Nick wuxuu helay dalab nololeedkiisii uu weligiis doonayay. wuxuu raadinayay nolol degan iyo lacag ku filan. haddana waxaa hortaagan wiil fulay ah oo si fudud u siinaya wax intaas ka badan suu keliya u noqdo macalinkiisa. dhibka keliya ayaa ah ninka hadda kafeteriyaha yimid. ninkan wuxuu u yimid inuu dilo Nick. Danny wuxuu soo kaxaystay raggiisa isagoo raba in Nick la burburiyo. nasiib wanaag, Cyrus wuxuu samaynayaa dareengelin, taasoo siinaysa Nick waqti uu kaga baxsado albaabka dambe oo uu isku qariyo saqafka sare. halkaas ayuu ka maqlayaa Danny oo madaxiisa lacag dul dhigaya. Nick wuxuu qorsheynayaa inuu isqariyo, laakiin wax walba waxay isbedelayaan markii Danny uu amro raggiisa inay dib u laabtaan oo ay Cyrus dilaan. wuxuu dareemayaa inuusan haysan doorasho aan ka ahayn inuu fargeliyo suu u badbaadiyo Cyrus, iyadoo uu adeegsanayo keliya qaado iyo fargeeto uu ka soo qaatay kafeteriyaha. Nick wuxuu dilayaa dhammaan raggii Danny. kadib markii Danny laftiisa uu soo weeraro, Nick wuxuu fargeetada ka gelinayaa gacanta, kadibna wuu sii riixayaa oo qaado ka gelinaya dhuunta, isagoo u dilaya si dhammaystiran. markuu Nick
nick gaarigiisa dib ugu laabto, Cyrus ayaaba sugaya isagoo sheegaya dareengelintii uu ku sameeyey tuugada si Nick uga baxsado wuxuu ahaa ficilkii ugu geesisanaa ee uu weligii sameeyo, waxaana sabab u ah Nick. sababtaas darteed Nick wuxuu u celinayaa jeegii 500,000 isagoo uga mahadcelinaya fursadda uu siiyey, lacagtii ugu fududeed ee uu weligiis kasbaday. Nick ugu dambeyn wuxuu ka tegayaa Las Vegas isagoo ka baxaya noloshii dhibaatada lahayd, kana go'an inuu nabad ku noolaado ugu yaraan ilaa ay lacagtu ka dhammaato oo uu dib ugu soo laabto. muuqaalku halkan ayuu ku egyahay. fadlan taabo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kalena commentiga hoose noogu reeb. kulanti dambe oo aad u xiiso badan. mahadsanid.